maalin wanaagsan ilma maxamed waan salaamay aad baan ni salaamaya anoo halkaa iska fadhiyo Soomaalidu rabshad bay kugula soo kalahayaan waaga barigiisa dad baa dibkooda kugula soo guuraya moogta bartaasa galaas makaahilka iska cabiya hada fiyo gaayar baan iska enjoy gareynay abayman baan la halkaa iskaga sugayay midba asba telefoon ii soo dirtay waxa ila soo doonatay wax shucuurtayda kiciyay anoo dumar bay sheekadooda iska daayay oo aan ilaawe dumar iyo hadalkooda baa anoo iska daayay bay mid baasi ku soo galay wax ku sheegayo oo ku kicino biyo fadhiya biyo socda kiciya alla Soomaalidu hadalkeedu mahmaahdeedu badana waxa la yiri doqon hana gargaarsan hana gargaarin doqon hana gargaarsan hana gargaarin hana caawin ha ka dalban ha u kaalmayn ha ka sugin baa la yiri kadabkiina ala gooy kuwan sheegay iyagaas garanaya idinko dhan idinkama hadlayo intaan ka hadlayo baan ka hadlay waana naago uun rakama hadlay gabadh bay soo wacdayo saako waxay tiri Safiya ay 7 caruuraan haystaa Mareykan baan kula deganahay nin baan 7 cunug ba u dhalay waxay tiri 15 sano ka hor anigoo umul ah buu ninkayga halka ka dhacay wixii yaraan haysanay intuu qaatay waa Afrika tagay oo business ka furtay oo naa ku guursaday halka degay 15 sano dad baad ka timi sidii nin ruumayda hayo reerka la deganaa buu isku guuribay caruurtaydii waan korsaday halkii baan iska joogay inantaan barigii umusha ku ahaa maanta waa 15 high school bay dhigataa qaar baa ii guursaday qaar baa jaamacada iga baxay qaar baa iga xanuunsaday aduu siday dooniba ha noqotay 50 years waxaan ku soo mooday bay tiri kaciyo kuf maanta waxay tiri markaan koobkayga shaaha fadhiga ku cabay ee laba kamid ciyaalka ii shaqeeyeen ee inan kamid la ii guursaday ee inantii weerad high school ii gashay ee islaahay bay tiri hadda naso ayuu walaal soo bukooday bay tiri markuu soo bukoodu soo xanuunsaday oo deexo caruurihiisa iyo balaadiisa meeshuu ku noolaa wax ku heleen ayaa odagii la soo qaaday halkan baa la keenay dhakhtar baa la geeyay dhakhtarka lagu daweeyay dhakhtarkii markii lagu daweeyay waan siira waalwaala waxa ay tiri maxaan isku sheegaynaa qof 15 sano iska maqana meelihiisa ha tago alla maya bisinka waa caruurta aabahood miyaanad xishoonayn caruurta uga ducee inkaartiisa iska ilaali baba saas baa la yiri odaygii waxay tiri walla ii keeno gurigu ii jiifa dhowr bilood baan hayaa mar alla iyo markaan arko baa tiri dhikarigu soo boodaya waxaan isla bay tiri ma sumaysaa ma dishaa waxay tiri 15 sano yaman baan ka nimi qaxooti baan soo maray caruurta waaweyn yaman baan qaar ku dhalay rafaad baan ku soo waday reerkaas sidaan ku keenay halka ku soo gaadhay Ilaahay baa u beetay maalin qurahaatay ma nasan ninka maalintan guursaday rawankan cagaha saaray haddaan isla habay tiri wuxuu ka kac haddana waa ka waxay tiri gargarid dib igu cali marka waxay tiri dadkii iyo ummadii caruurtii wixii dhan baan wada hiifay maxaan sameeyaa bay tiri waxaan ku lugta intaad qabato oo jiido qash meesha qashinkiina la dhigo agdhig ma tiraahdaa wallahi billaah adana waxaan iri Safiya iyadaba ajir bay meesha ka dayday maxay iska marba waxaan ku soo celinaa hadda saaka maxaa dambi ila soo doonatay na ilaahay miyaad ka baqay walaal maxaad waxaan igula soo kala dumarow wallahi billaah reexa markuu waxay yiraahdeen ninka caraftiisa ka fogay urtiisa lama soo dhaweysto ninka intagoo ku qaba oo reerkiini ka soo wadanaade meel walba naag walayba aqalkiina sariir baa taala dhari bariisina uu ka kirsan yahay waxaad cuntiina meydaan waayeen meelan seexatiina meydaan waan dad baa idin dhalay oo idin ku tabco idin soo korsado daacaas badad aad u tiinde ninka intuu reerkiini ka soo waday garigo aan ku geeyay ka tagay nolol kale iyo naag kale iyo ilmo kale samaysta ee halkii uu joogay ilaahay amba u soo qaraadeeyay iska soo luuda amba soo bukooda adigu ma waxa tahay home healthigi patientga la geynay baa tahay maxaa ku keenay 15 years buu ka maqnaaye 15 sanadeed adigu umusha ahayd ilmaha korinaysay iskuulka geynaysay xanuunsanaysay waxa soo dhan haysiin maxaad u noqon weydaan idinku caruurta hooyadood maxaa idinka leedinka ducaysan laayay maxaa idinku dul qaadan laayay maxaa idinka loo oran laayay waa ubadka hooyadooda sidan ka daa waa ubadka hooyadooda ka ducayso waa caruurta hooyadooda walaalo u tud maxaa loo oran laayay
inamadu waa isku ehelde inamadu dhan waa isku qabiil odayada dhan waa isku aabaha iyo ninkaagu waa isku xulaafo qabiil adigu laakiin naag baatay asal madooriye looma ooyaan wax lagu mafalaan taranka yar baa laga rabaa taranka marka laga dhameystana trash baa dagtooda ka tahay na woman up oo wax isku fala oo naftiina u kaca والله بالله تالله هذا أنا وادي دنباجنيسين إذن كنا حب اسكو مفلدين وبابا اسكو مفلدين واي أنا جو أو ساس وأولاد هايسته أو ريركا هايسته نينك هالكا كبحية يجي تجي إلهي بان كل دارته وحنوصنا يا بيت شيء سايم بيا حبدي كل عضو حبدي مية كل عضو الناس جرسدين نلول سماستي هالكا كبحية سومالي بان وضنا هاي بس عرورتي سوا هيانده أنا أقول لكن عرورتي سوا دلوا ده المها أنا أقول ناقنا مرنا المية أبوت كلا نحكل تاسوا وبعد أنا والمها يجي أبي أشود ما كلا نحكل ما فهمتي لكننا كلا تجنو ولي بيسوي يقطع شذي ده أدو تكتو أدو حكيم تردمك أدي كاي مادو حتى يو أندرستان أنا بس أورنا يا بنيو أنا يقطع ميدا واحد بدن بان أنا ديالو كلها كياني لكن كاتع شذي ويرقف كسوا ورا وادي كوين halka ka baxayo inan qeyrkaaya intuu guursaday adigina dhalmadii kugu celiyay caruur kalena dhalay wadiga fiicantiina jazaagiina jannada Allah ka dhigo aan laakiin dambiyadiina igula soo kalihina min subax wallahi billah diiga igu kaco cara i qabato waxaan sidahdaa yaani waay gabadh saa loo galay waaba gabadh waaba hooye waaba inane waaba ilmaha hooyadood waaba baan sidaanu idinkaan idin danqadaa laakiin doqmaatihiin دقن باليري وش أكتي ده كله فهدي كره ويدنا جوجل ما فهمتين now that being said I feel relief والله بس كعسنا شعورتي ده كل جيس كعسنا عني ما فهمت إن كاتجيو كاتشتي يا تيسا كأنا إلا إن لك لا تشتى أدوكونا تشتى مكسو واحد هاي أنا وناك صدق